السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحدان جنرال كمركز السود وهذا أدي هذا وما هتسنتهين دولة أمريكان كهيا مانتا waxa ay ku dhawaaqday dad musuqmaasuqay kaararka caafimaadka ee Medicare iyo waliba Medicaid waxaana dacwad lagu soo oogay dad gaaraya ilaa iyo 455 qof kuwaasi oo ku eedeysan lacag 6 bilyan ka badan. howlgalkan oo hay'ado kala duwan oo heer gobol iyo kuwa federaal ah iska kaashadeen waxaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay uu ka socday guud ahaanba gobolada Mareykanka iyo dhulalka kale oo dowladda Mareykanka ay maamusho oo hoos yimaada. haddaba dacwadahan yaa ku dhawaaqay maxayse yihiin dadka baxsadka ahaa oo laba toddobaad ka hor FBI-du ay shaacisay oo musuqmaasuqa ku eedeysnaa oo wadamo kale laga soo qabtay iyagoo ku dhuumaaleysanaya haddana kuwa kale lagu dhawaaqay in lagu daba joogo lana shaaciyay wadamada loo malaynayo in ay ku dhuumaaleysanayaan. arrintaasina sidoo kale waan idinla wadaagayaa. maanta ayaa wasaaradda cadaaladda Mareykanka ee caasimadda Washington DC waxaa shir jaraa'id ku qabtay ninka xilka wasiirka cadaaladda sida ku meel gaarka u sii haya Todd Blanche, wasiirka caafimaadka dowladda Mareykanka Robert F Kennedy, taliyaha FBI-da Kash Patel, dacwad oogayaal federaal ah iyo waliba ninka madaxda ka ah Medicare iyo Medicaid Dr. Mehmet Oz. waxa mas'uuliyiintan ay ku dhawaaqeen baaritaan labadii toddobaad ee la soo dhaafay dowladda federaalka iyo gobolada Mareykanka iyo waliba dhulalka Mareykanku uu maamulo oo hoos yimaado laga sameynayay laguna daba joogay dadka musuqmaasuqay kaararka caafimaadka ee dowladda Mareykanka ay bixiso ee Medicare iyo waliba Medicaid. markii hore Minnesota oo kaliya ayay ku koobneed, Soomaalida ayaa waxaday ayaa la dhahayay, laakiin hadda guud ahaan gobolada ayaa laga sameeyay baaritaankan dadkana lagu soo qabtay. kusimaha wasiirka cadaaladda Mareykanka oo hadda Trump laga yaabo inuu u magacaabo si ku joogto ah uu u magacaabo Todd Blanche ninka la yiraahdo ayaa shirkan jaraa'id ka mid ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ku qabtay. waxaana uu sheegay in dadaalkan dowladda federaalka iyo waliba gobolada Mareykanku ay iska kaashadeen, isla markaana waxa uu sheegay in lagula dagaalamayay musuqmaasuqa dhinaca caafimaadka tiradii ugu badnayd ayaana lagu soo oogay dacwado. waxa uu sheegay in kooxda baaritaankan sameynaysa ay ku daba joogeen dadka canshuur bixiyaasha Mareykanka barnaamijyada loogu talagalay xadayay, taasi oo dadka nugul ee Mareykanka loogu talagalay isla markaana lacagahaasi ka qaadanayay. waxa uu sheegay in ilaa iyo 9 guddi oo kala duwan oo loogu talagalay la dagaalanka musuqmaasuqa dhinaca caafimaadka in ay ka qayb qaateen dadaalkan. waxaana sidoo kale ka mid ahaa 57 xeer ilaaliyaal federaal ah. waxaa sidoo kale ka mid ahaa 41 xeer ilaaliyaasha guud ee gobolada Mareykanka, waliba kuwa Republican ah iyo kuwa dimuqraadiya isugu jiray. waxaana uu sheegay in dhammaantoodba ay baaritaankan ay qayb ka ahaayeen. waxa uu sheegay in dowladdu ay wado dadaalkan ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa. waxaana uu sheegay ma ahan wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda caafimaadka, laakiin heer gobol iyo heer dowlado hoose xitaa musuq baaritaankan qayb ayay ka ahayn. waxaana uu sheegay in maanta ay ku dhawaaqayaan in dacwado heer federaal iyo kuwa gobol lagu soo oogayo ilaa iyo muddadii labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ama 14 maalmood ee lasoo dhaafay baaritaankan guud ahaanba waddanka laga waday oo heer gobol iyo waliba heer federaalba la iska kaashanayay. Mr. Todd Blanche, kusimaha wasiirka cadaaladda ee Mareykanka, waxa uu sheegay ilaa iyo laga soo bilaabo bishan June 8 in baaritaankaasi lagu soo qabtay dad gaaraya 455 qof oo eedeysanayaal ah, isla markaana waxaa laga soo qabqabtay ilaa iyo guud ahaanba gobolada Mareykanka iyo dhulalka Mareykanka hoos yimaada. Mareykanka waxaa jira ilaa iyo 14 deegaan in uu maamulo guud ahaan caalamka, laakiin si joogto ah waxa uu maamulaa 5 waxayna kala yihiin American Samoa, Guam, waxaa ka mid ah the Northern Mariana Islands, Puerto Rico iyo sidoo kalena the US Virgin Islands. intaasi ayaa hadda dadkoodu ay dowladda Mareykanka si toosa u hoos yimaada marka la yiraahdo siyaasad ahaan iyo waliba dhaqaale ahaan. marka waxa uu sheegay in gobolada Mareykanka iyo dhulalka Mareykanka uu maamulo laga soo qabtay. waxa uu sheegay shakhsiyaadkan 455 qof inay ka qayb qaateen musuqmaasuq la xiriiray caafimaadka lacag ka badan 6.5 bilyan oo dollar, milyan ma ahan bilyan oo dollar ayay musuqmaasuqeen. waxayna ay waraaqo been u soo tirsadeen Medicaid iyo waliba Medicare iyo waliba
Medicaid si ay halkaasi lacagahaasi barnaamijyada caafimaadka loogu talagalay ay musuqmaasuqaan. Waxa uu sheegay in uu ka mid yahay nin madax ka ahaa mid ka mid ah shirkadaha caafimaadka oo Arizona ku nool, waxa uuna lahaa shirkad la yiraahdo Woundcare. Ninkaasi keligii waxa uu musuqmaasuqay oo lala xiriirinayaa $1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxaa sidoo kale jira in ay jiraan ilaa iyo 11 eedeysane oo iyaguna ku eedeysan lacag ka badan $2 bilyan oo dollar uu sheegay iyaguna dadka dacwadda lagu soo oogay inay yihiin. Waa kan kusimaha wasiirka cadaaladda oo mar kalena arrintaasi faahfaahinay. Today we are announcing federal and state charges, all of which were charged or unsealed at some point over the past 2 weeks, the past 14 days, coordinated nationwide action. Since June 8th, we've charged 455 defendants across 56, like I said a minute ago, U.S. attorney's offices, and 45 U.S. states and territories. As alleged in the various indictments, these individuals participated in healthcare fraud schemes involving over $6.5 billion in false claims submitted to Medicare, Medicaid, and other healthcare programs. But here are a few points that stand out. In one indictment, we're bringing charges against a corporate executive in Arizona in connection to over a $1 billion fraud involving unnecessary wound grafts. This alleged scheme costs Medicare over $1 million per patient. In total, our indictment charges 11 defendants for over $2 billion in fraudulent claims in connection to alleged wound care schemes. Sidoo kale kusimaha wasiirka caafimaadka Todd Blanche waxa uu sheegay lacagahan dadku ay xadeen maxay ku qarash gareeyeen. Shakhsiyaadkan waxa uu sheegay lacagtii canshuur bixiyaasha oo ay xadeen oo malaayiin dollar ahayd in ay ka bixiyeen guryo malaayiin dollar ah in ay ku iibsadeen. Waxay sidoo kale ku iibsadeen gawaari oo raaxo, waxaana ka mid ahaa gaari la yiraahdo Maserati oo $135,000 ay ka bixiyeen. waxaa ka mid ahaa waxyaabaha la isku qurxiyo ee jewelry-ga oo mid ka mid ah uu katiinad ku iibsaday $865,000. waxaa sidoo kale la yaab lahayd in hotel ku yaala xeeb ku taala Philippines $4.6 milyan ay ku dhisayeen. Marka waxa uu yiri lacagtan inteeda badan dib ayaan u soo celinay, lacagtii bangiyada ugu jirtay, kuwii gawaarida raaxada ay ku gateen, sidoo kalena jewelry-gii la isku qurxinayay. waxaana uu sheegay sidoo kale in dadkan musuqmaasuqa sameeyay cadaaladda lala tiigsan doono. marka waxa uu xaqiijiyay dadaalkan 2 toddobaad ee la soo dhaafay la waday in lacago fara badan dhinaca dawladda dib loogu soo celiyay oo dadkaasi lacagihii gawaarida ama guryaha ama sidoo kalena bangi accountiyadooda loogu tagay. waxa uu sidoo kale sheegay dhinaca gobolada ku yaala galbeedka Mareykanka in guddi gaar ah loo sameeyay oo musuqmaasuqa la dagaalama. waxa uu sidoo kale sheegay in la kordhiyay dacwadoogayaasha federaalka ah ama xeer ilaaliyaasha dhinaca gobolada galbeedka Mareykanka ku yaala. waxaana uu sheegay in eedeysanayaal kale oo gaaraya 295 oo Medicare ka musuqmaasuqay $518 milyan in hadda iyagana dacwado lagu soo oogi doono. waa kan mar kale kusimaha wasiirka cadaaladda oo arrintaasi faahfaahinay. The indictment also alleges that these individuals then used the taxpayer money to bankroll multi-million-dollar homes, luxury vehicles like a $135,000 Maserati, jewelry like an $865,000 Bulgari necklace, and to top it all off, to fund the construction of a $4.6 million hotel at a beach resort in the Philippines. We're taking back the money, the luxury cars, the jewelry, and these alleged fraudsters will face justice. The coordinated actions of the past 2 weeks have resulted in over $182 million in cash and other assets seized, making clear our healthcare fraud enforcement efforts generate a significant return on investment for our taxpayers. In terms of Medicaid fraud, we're able to announce today the creation of the West Coast Strike Force and the deployment of additional prosecutors, allowing us to bring charges against a record-setting 295 defendants. Our indictments allege over $518 million in Medicaid fraud between these individual defendants. dhinaca kale shirka jaraa'id waxaa qayb ka ahaa taliyaha FBI-da Mareykanka Kash Patel.
Kash Patel waxa uu faahfaahiyey in 2 toddobaad ka hor ay jireen liiska dad musuqmaasuq ku eedeysan oo baxsada oo Mareykanka ka baxsada oo 8 qof oo 4 bishan lagu dhawaaqay. Waxa uu xaqiijiyey liiskaasi dadkii ku jiray qaarkood inay soo dhiibeen. Waxaa ka mid ah Saciid Cabdullaahi Ereg oo Soomaali ahaa oo 10kii bishan dowladda Mareykanka isku soo dhiibay. Waxa uu xaqiijiyey marka in maadaama dowladda Mareykanku ay arrintan ay ku taageertay wasaaradda cadaaladda iyo weliba aqalka cad, waxa uu sheegay in ay jiraan koox FBI-du ay leedahay oo la yiraahdo Foreign Transfer Custodies oo FTAX loo soo gaabiyo oo ah dadka Mareykanka baxsadka ka ah wadamada kale ee Mareykanka inay dad isu soo dhiibaan ay ka dhaxayso inay isku soo dhiibaan. Waxa uu sheegay in 4 qof oo baxsada 4 qaaradood oo kala duwan 24 saac gudahooda ay FBI-du ay ka soo qabatay. Waxa ka mid ah nin Turkiga laga soo qabtay oo la yiraahdo Ibrahim Qalduun Hilmi. Ninkan waxa uu ku eedeysnaa 3.7 bilyan oo dollar oo Medicare uu ka musuqmaasuqay. Waa ninkan sawirkiisu uu idiin muuqdo oo feeraha weyn. Ninkan dowladda Turkiga ayaa gacan ka siisay in gacanta lagu soo dhigo dowladda Mareykanka ayaana dib loogu soo celiyay. Waxaa sidoo kale jira nin kale oo magaciisa la yiraahdo Herbert Leon Kimball oo muwaadin Mareykan ah isla markaana ku eedeysnaa 1.2 bilyan oo dollar inuu musuqmaasuqay in wadanka Philippines laga soo qabtay. Ninkan sanadkii 2019 ayaa dacwado federaal ah dambigooda uu qirtay waxaana lagu waday bishii Agost ee sanadkii 2024 in la xukumo waa una baxsaday iyadoo sidoo kalena loo jaray warranty federaal ah isla markaana lagu daba jiray hadda wadanka Philippines ayaa isagana ninkaasi laga soo qabtay. Waa kan markale taliyaha FBI-da oo sheegay in musuqmaasuq aan loo dul qaadanaynin dadka xadaya lacagaha canshuur bixiyaasha Mareykanka loogu talagalayna maalmahooda ay tirsan yihiin meel kasta oo ay joogaan caalamka. taliyaha FBI-da Kash Patel waxa uu sidoo kale shacabka Mareykanka uu ka codsaday iyo weliba kuwa caalamka in 2 qof oo baxsada hadda lagu daba joogo isla markaana liiskooda lagu soo dari doono dadka musuqmaasuqa ku eedeysan ee la raadinayo. Waxa ka mid ah nin la yiraahdo Khalid Satari. Ninkan waxa uu ku eedeysan yahay 547 milyan waxaana loo maleynayaa inuu ku dhuumaaleysanayo wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta. Waxa uu yiri qofkii arka hala soo xiriiro 1800 call FBI. taliyaha FBI-da Kash Patel waxa uu sidoo kale sheegay qofka labaad inuu yahay haweeney la yiraahdo magaceeda Emily Tai oo loo maleynayo iyaduna inay ku dhuumaaleysanayso wadanka Vietnam isla markaana dadka liiska ku eedeysan musuqmaasuqa oo baxsadka ah inay ka mid tahay. Haddaba waxa uu yiri qofkii arka hala soo xiriiro FBI-da si gacanta loogu soo dhigo. We're also going to ask what we did in Ohio a couple of weeks ago, and we'll circulate it on social media later. We're adding 2 more individuals to the most wanted fraudster list. I said then, and I've said it before, the American people in the world are our best sources of information. There is no such thing as bad information. So if you have any information on Khalid Satari, who is wanted for a $547 million genetic testing scheme and we believe to be hiding in the United Arab Emirates, call 1-800-CALL-FBI, 1-800-CALL-FBI. Let us know. You saw what we did in just 2 weeks by apprehending 2 of the most wanted fraudsters. With your help, we will apprehend the rest of them. The last one is Emily Tai, who's previously on an ankle monitor and fled, we believe, to Vietnam. So if the American public or anyone in the world has information on Emily Tai, please call 1-800-CALL-FBI. We need your information. We need your help. And you have now seen what we can collectively do as an interagency under the Attorney General's brilliant leadership and the prioritization at the White House, that fraud will not be tolerated, that fraud perpetrators will be apprehended not just across the United States of America, but from the 4 corners of the world. So we plead with you to give us any and all information that you have. هذه هذا ما سنتين أصحاب تنتهي المركلة كل مدونه نبت قلي.